aqoon-yahan maxamed cali bile oo ka tirsan mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga kulmiye oo maanta qaar ka mida warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay warqad uu qoray michael kiiton oo ka tirsan qaramada midoobey. aqoon-yahan maxamed cali bile oo hadalkiisa sii wata ayaa isbarbardhig ku sameeyey warqadan uu qoray michael kiiton oo ka tirsan qaramada midoobey iyo khudbaddii uu musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani cabdiraxmaan cirre ka jeediyey magaalada boorama oo uu sheegay inaanay waxba ku kala duwanayn khudbadda cabdiraxmaan cirre iyo warqadan uu qoray michael kiiton. anigu qodobkaasi ayaan weliba aad ugu celinaya aniga xaggayga important ilaa oo ah in aan ololaha loo adeegsan arrin fidno hadday tahay kulmiye iyo hadday tahay cid iyo hadday tahay waddaniba inaan fidno loo adeegsan in wanaagga laga shaqeeyo xisbigii doonaha hele berri inteena kale riciyad baynu noqonnaa waynu la shaqaynaynaa hadduu berri waddani helo dee waanu la shaqaynaynaa hadduu cid helo waanu la shaqaynaynaa hadduu kulmiye helona waanu la shaqaynaynaa inteena kalena waynu la wada shaqaynaynaa meesha ma kala lihiin cadow iyo yacni shisheeye lama kala aha dadku waa mid ta koowaad waxay ahayd maalmo dhexdii waxaa baraha internetka iyo facebooka la soo geliyey warqadan oo sida ay u qoran tahay ka sheekaynaysa inuu qoray wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya yuusuf garaad uuna qoray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar isaga oo dhowr arrimood faahfaahinaya warqadda dad badan baa diiday oo ku dooday inay tahay warqad been abuura tay doontaha noqotay laakiinse waxaa u eegtay inay tahay faragelin qaawanun hadday warqaddu run tahay iyo hadday been abuur tahayba waa faragelin qaawan oo doorashada iyo khalkhalgelinteeda iyo ama magac ka dilisba hadday doontaha noqotay xisbiyada qaarkooda ay loo geysanayo waxaana uun marka dulucdeeda ku soo noqoto ay uun tilmaamaysaa xisbiga waddani ayay si u sheegaysaa laakiinse anigu qiimeynteyda sameeyey warqadda waxaan ka soo qaaday inay been abuur tahay wixii la doonaha looga jeeday warqad kale oo la leeyahay waxaa qoray nin la idhahdo michael kiiton oo jamciyadda quruumaha ka dhexaysa oo loo qorayo madaxweynaha federaalka soomaaliya farmaajo warqaddaasi oo sida ay u qorantahay markaad eegto ah warqad loogu jawaabayo codsi hore oo uu farmaajo soo qortay si xisbiga waddani uu doorashada u helo iyagana in maxkamad la taago oo dembiilyada dagaal lagu qaado arrimahaasay warqaddu ka hadlaysaa tay doonta ha noqoto laakiinse aniga lafteedu weli waxaan u arkaa in ay tahay faragelin qaawan. dhanka kale wuxuu aqoon-yahan maxamed cali bile been abuur ku tilmaamay warqad baryahan dambe la isla dhex marayey baraha bulshada oo la sheegay inay ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya oo la sheegay in lagu taageerayo xisbiga mucaaradka ah ee waddani. mudane cirre khudbaddiisii uu shalay ka jeediyey magaalada boorame exactly intan in leeg buu isna yidhi oo uu leeyahay waa dembiile muuse biixi waa kan labadaa fariimood ee labada meelood ku qoran waa isku mid markaad iminka tirada 490 2,000 xabaalood meesha kale fariinta hadalkaasi gudbinaya maxay tahay maxaa fariintaasi ay gudbinaysaa 2,000 xabaalood dadkii walaalaha ahaa ee markii xurgufta ku dhex martay 490 ee ka heshiiyey hore uga maray ee caruurtii 490 dhaleen ay maanta dhakhtar yihiin ay injineer yihiin marka fariinta dib ugu celiso ee burcad dhexdeeda miinada ku dhex tuurto ummadda dhexdeeda maxay tahay ma ka kacayba ma fidna cusub baa meesha aad ka abuuray. maxamed daaq ismaaciil xaashi bulsha TV hargeysa.